bandhigan oo soo qaban qaabisay hay'adda Gale oo taageero ka helaysa USAID ayaa waxaa lagu soo bandhigay wax soo saarka dhinacyada cuntada, gulumaysiga iyo agabyada kale hidaha iyo dhaqanka iyo nooc cusub oo bariis ah maadaama gobolka Shabeellada Dhexe uu caan ku yahay beerashada bariiska. Xasan Ibraahim waxa uu ka tirsan yahay shirkadda Danwadaag waxaana uu faahfaahin ka bixinayaa waxyaabaha ay kula duwan yihiin bariiskii hore loo keeni jiray magaalada iyo kan hadda ka baxa magaalada Jowhar. waa bariis ka duwan bariiskii hore ee ka baxay Jowhar. bariiskan marka shiido waad arkaysaa si uniform ah ayuu u soo baxayaa, laakiin kii hore midda jaban waa qashin raacsan. si loo baxo dhibaatadaas iyo baahidaas ayaan waxaan go'aansanay in beeralayda aan tababarno oo aan siirno tababar ku filan si mataqaana abuurka ay iskiga bedelaan ee duuga ah. waxyaabaha kale ee la soo bandhigay waxaa ka mid ah cunto Soomaaliga sida oodkaca iyo timirta oo si heersar ah loo diyaariyay xil walbana la heli karo. magacaygu waa Sumayn Nur Cabdi, waxaa ka qayb galeynaa Hirshabeelle Agro Business Investment Forum oo ah shirka maalgashiga Hirshabeelle. waxaa ka qayb galeynaa Wadani Foods oo ah company ka samaysan magaalada Muqdisho. wuxuu sameeyaa ama soo saaraa cuntooyinka wadaniga ah, gaar ahaan oodkaca oo ah hilibka geela laga sameeyo ee Soomaalida ee dhaqanka u lahayd. faa'iidada uu leeyahayna waxay tahay maadaama loo sameeyo qaab kaydin oo kale tahay inay dadka ay sameystaan oo guryaha ay dhigtaan isticmaalaan si sahlan ay u helaan meeshii ay hawsha dheer u maraayeen ahayd inay waqti badan ay geliyaan inay heli karaan hilibkii oo diyaarsan. hilib ay yaqaanaan oo laga sameeyo hilibka geela, looda, hadba qofka nooca uu rabo looga sameeyo. sidoo kale loogu sameeyo subaga ama saliida nooca asiga uu rabo. faa'iidooyinka uu leeyahay waxa waaye muddo dheer inuu yaali karo. dadka xanuunsan ama dhaawacyada soo gaaraan oo qayb ka noqonaya inay si degdeg ah u bogsadaan. sidoo kale ayadana waxaan sameynaa timirtii oo ayadana lafaha laga bixiyay la xashay. sidoo kale ayadana saliid macsaro iyo suuq qofku wuxuu rabo loogu xashaayo. waxaan kaga qayb galeynaa shirkan ka dhacay magaalada Jowhar Hirshabeelle, magaalada madaxda Hirshabeelle, bandhigan cuntooyinka wadaniga ah gaar ahaan oodkaca iyo timirta. alaabaha hidaha iyo dhaqanka ayaa qayb ka ahaa bandhiga iyadoo ilaa 20 sano ugu dambeeyay wadanka aad looga isticmaalayay waxyaabaha ka samaysan balastiga ee dibadda laga keeno. waa arkaysaa meesha oodka xirihaysa xataa kan waxa waaye sharaxaadii oo guriga, kan waa maqasti, kan waa kalanto iyadana badalkii lagu wareegsanayay, kan waxa waaye sagbaa la yiraahdo sagba baawigeeda waa kana rootiga waa halkaana laga saartaa. waa waxa dunyada ka jiro, waa falshaxan qurux iyo qaaya leh, waxna taakuleeyo oo unka gacan qabtana ma jirto. anaka isla hadda haddaan gacan heli doonana alxamdulillah saan iyo si ka fiican. dhiilkan waa kana waa dhiilihii maxaan ku leeyahay caanaha lagu maalaayay. dambiilahan waa boorsooyin, kan waa tii gabdhaha xaniinta kusoo shiidaha ay kusoo adeegaha bacda magaalada dhexdeeda uga dilaacayso aan u suubina inay bacda kada ay maxaan ku leeyahay iska tanasulaan. marka mooyidii ka sugaatan oo waa kubaan waa boorso oo ujeedaa. marka waxaan rabnaa shacabka quruxda qiimaha badan wax lagu taakuleeyo malaha waa in lagu taakuleeyo oo lagu gacan qabtaan rabnaa.